waxaan daawadayaal ku soo dhawaada Shariif Show. Subscribe noo saar, like saaxiibada hore inoo joogo muuqaalka meel dheer inoo gaarsiinaysaa noo like garee muuqaalka. Waxaan idin kula wadaagi doonaa qaybtan haddii barnaamij uu ka noqdo gabadh markaasi la rumaysan yahay in ay tahay kin Joyo oo markaasi uu dhalay waqtigan si weyn doola tusta military ee markaasi ugu dalbatay si weyn ay ugu soo muuqatay social media. Kim Jong Un oo isna markaasi qaabilay ama aqbalayba gabadha waqooyiga Korea ee Kim Jong Un oo markaasi aqbalayso doola tuska military ee lagu qabtay magaalada Pyongyang. Sidee hadaba ku imaaday waqtigan iyadoo xaaladda Shiinuhu u muuqdo waqtigan in mar kale iyana talaabo weyn ay markaasi u qaadayo dhinaca militariga. Hadaba warbaahinada kala duwan Reuters iyo waliba sidoo kale AI warbaahinta Sky Plus ayaa si weyn u daabacay maqaalo kala duwan oo ku aadan Mareykanka marka laga tago Iran sida la sheegay ama wararkuba ay sheegayaan in ay garab weyn u noqon rabaan Iran taasoo u muuqato waqtigan dowlad tuskana ku soo aadayso in Iran iyo waliba Shiinuhu ay si weyn ay isku garabsiin doonaan. Waxa inta badan la helaya ama xogaha ku saleysan la helaya ay tilmaamayaan in dabcan markaasi Shiinuhu hubka uu siinayo Iran waqtigan sababta keentay in Mareykanku dib ugu dhaco duqeymihii uu qorsheenay inuu ku qaado Iran ay keentay in markaasi dib ugu laabto waliba cabsi uu ka qabo China ama Shiinaha taasoo u muuqato waqtigan in talaabooyinka military ee sida weyn ugu dhoolo tuska ugu sameynayso ay qayb ka tahay inay si weyn uga cabsi geliso Mareykanka. Iran garab weyn ayuu helay xulufays adag ayaa ku soo aaday xilligan waqtigan u muuqdana wuxuu u muuqdaa in gebi ahaan markaasi uu ka hortay karo isku day kasto Mareykanka uu la yimaado. Hadaba qormadan in ka yar ka hor February 25 2026 hadda aan ku guud jirno hoyga xukuma Pyongyang waxaan markaasi ka dhacday bal dibadda badan waa markaasi badnaanis ciidamada waaweyn oo waliba si weyn Bambeeg ugu wada waxaana muuqaal ay siideysay warbaahinta rasmiga ah lagu arkay gabadha madaxweynaha waqooyi Korea Kim Jong Un oo markaasi goobta fadhiday muuqaalkaasi oo markaasi ka soo baxay maanta iyo waliba shalay intii u dhaxeeyay gabadhan oo markaasi la rumaysan yahay in ay tahay Kim Jong Un inuu dhalay ayaan markaasi in dhinacayna ka taagneed aabaheed iyo waliba saraakiil sarsare oo ciidanka taasi oo sababtay warbaahinta iyo waliba falanqayaasha siyaasaddu inay markaasi ku doodaan ama markaasi la diyaariyo sidii ay ugu noqon lahayd bedelka aabaheed. Hadaba mustaqbalka Shiinuhu waxa si weyn u wareegi doona qorshaha la tilmaamay gabadha uu dhalay muddo sanado ayaan markaasi ay ahayd Inja ayaa la yiraahdaa magaceeda oo markaasi si tartiib ah ay ugu soo muuqanaysay warbaahinta rasmiga ah ee dalalka iyadoo marar badan lagu arkay munaasabadaha militariga iyo waliba dawladnimada taasi oo xoojinaysay madalaha awoodeed iyo waliba sidoo kale mas'uuliyadaha hogaamineed lana siinay ama loo garowsanay inay qayb ka noqoto. Si kastaba ha ahaatee gabadha tani waxay markaasi dawladda waqooyi Korea ee markaasi wali si rasmi ah aanan u xaqiijinin magaceeda sida markaasi ay ku bedeli lahayd ama rasmiga ay ugu imaan lahayd Kim Jong Un. waxaan markaasi warbixinada sirdoonka qaar inta badan la helay ay tilmaameen inay wali markaasi ku jirto marxaladaha kala doorashooyinka ku aadan qofka sidoo markaasi ugu soo bixi lahaa. Hadaba waxyaabaha ugu dheer oo markan ka soo baxaya ayaa sababaha imaanaydo waqtigan iyo waliba waxa ku soo beeqaamay doorkeeda ku aadan talaabooyinka ay qaadanto iyo sida aabeed ugu xilkan ugu wareegi doonto. Hadaba dowla tuska military ayaa lagu xusay inta ugu badan waxay garab ay ku siin rabaan Iran oo u muuqato waqtigan in arrimo sirdoon oo la xiriiro hoose ay siinayso. Waxa kale oo ka soo kordho qubanayaashana dambe ku qaada dhigi doona saaxiibaal deedinkana noo cimaamado channelka subscribe noo saar like saaxiibada hore inoo joogo meel dheer in gaarsiinaysa inaga xasan mahadsanidin.